wakiilka UN iyo wakiilka African Union iyo European Union IGAD iyo dhammaan dawladaha oo Soomaaliya arrimaha aad u daneeyo Soomaaliya saaxiibada la ah oo ka soo qayb galay shirkan iyo wasiirada dhammaan assalaamu calaykum salaan kadib mahad ilaahay iskale ilaahan u mahadcelinaynaa shirkan oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayo nabadgelyada runtii Soomaaliya jid dheer ay soo martay alxamdulillah ilaahan u mahadcelinaynaa haddana meel fiican ay joogtaa waxaan u rajaynaynaa in shirkan uu guuleysto Soomaaliyana Soomaalidii ay ahaan jirtay ay ku soo noqoto runtii muddo badan ayaa la soo kaalmeeyay Soomaaliya dawladaha aad ay soo kaalmeeyeen gaar ahaan AMISOM dhiigooda ay u horeen runtii wax dhiig ka qaalisan ma jiraan waa u mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa in wax badan oo hadda dhiman laga qabto AMISOM bixitaankeedu hadda la sheegay anigu waxaan isleeyahay kulli hadda waqtiga AMISOM bixi lahayd lama joogo sababtoo ah ciidamadeena ma dhismin dhulkiina nabad ma noqonin dadka Soomaaliyeed hadii sida tan hadda ay yihiin looga tago dhibaatay noqonaysa waxaan rajaynaynaa in ciidamadii la dhiso AMISOM ayadoo ciidamadana dhistay dhulkuna nabad yahay jidadkuna ay furan yihiin inay markaas ay ciidamo kala wareegi karo inta la helo taas ayaa ayagana shaqadii ay soo guteen iyo dhibaatadii ka gaartay iyo dhimashadii taas ayagana abaalmarin u noqon karta dadkii kaalmeynay dhaqaalaha ku bixinay aad iyo aad u mahadsiin ayagana markii uu Soomaaliya oo nabada ciidankeeda dhisan yahay ay ka baxaan umba ayagana wixii bixiyeen ayagana markaas ay quuri karaan saas darteed waxaan rajaynaynaa in ciidamada Soomaaliyeed la dhiso oo qabateenta hubka nagala qaado ciidankeena la xoojiyo ciidamadeena dhibaatadoodu waxa waaye meelaha qaarkood ma difaaci karaan sababtana waxa ku kalifayso hubka ay haystaan haddii hubka ay culus ay haysan lahaayeen waxaan aaminsanahay meelihii ay la wareegaan inay haysan kari lahaayeen laakiin hadda ayadoo ku kalifayso hubka ay haystaan darteed ma ilaalin karaan saas darteed koonfur galbeed ahaan anaga waxaan rajaynaynaa gobolkan Shabeellaha Hoose dhibaatooyin badan anaga haysto markii hore colaado iyo qabiilo isay ayaa jireen alxamdulillah dawladda Soomaaliyeed iyo international community ay aad iyo aad u mahadsantahay gacan ka geysatay hatta dadkii way wada heshiiyeen waxaan rajaynaynaa in gobolkaasna gacan nagala siiyo meesha ay ku dhadhaleen kulli shabaabku ay wada degiin oo dhibaatooyin badan ka jirto waaye gobolkaas in wax laga qabto dhibkii hore jiray iyo khilaafaadkii isu adeegsigii ee shabaab isku adeegsan jireen dadka alxamdulillah waa laga soo gudbay waxaan rajaynaynaa gobolkaasna in gacan nagala siiyo sidii wax looga qaban lahaa gaar ahaan meesha ay AMISOM ay deganaan jirtay ay ka guurtay leega la yiraahdo dhibaatooyin badan aan ugu hayo jidkii meelihii la isku mari jiray runtii dhib badan ka jiro marka leega waxaan rajaynaynaa in AMISOM muddooyinka hore ayaga joogeen ciidanka asiga in meeshiisa lagu celiyo si jidka asiga loo maro jidka asiga dhibaato ka jirto lama mari karo waana jidka kaliya isku xiro Muqdisho ilaa iyo Gedo isku xiro waayo runtii dhib badan ka jiro waxaan rajaynaynaa in wax laga qabto runtii Soomaaliya intii soo kaalmeysay dhamaantood waa u mahadcelinaynaa laakiin sida hadda ay tahay haddii aanan dadku way diyaar garoobeen maanta waxay diyaar u yihiin in shabaab la diraraan marka maadaama shabaab inay la diraraan ay maanta diyaar u yihiin in gacan la siiyo aan niyadda laga jibinin haddii laakiin meelaha qaarkeed sida hadda ay yihiin ay sii ahaato runtii mushkil ay noqonaysaa waxaan rajaynaynaa shirkan inuu ka soo baxo meelaha dhibaatooyinka ka jirto in wax laga qabto ciidamo dheeraad ah lagu soo daro waqtigana sida uu madaxweyne Axmed uu sheegay waqti lagu xisaabtamo laga dhigo la yiraahdo maalin hebel waxaas hala qabto bil hebel waxaas hala qabto bil hebel ciidanka meesha lagu tababaro bil hebel maalin hebel ciidanka meesha lagu wareejiyo ciidanka AMISOM ciidankaas ku wareejiyo inaan yeelano waqti wax la qabto iyo waqti lagu xisaabtamo in la helo waxaan rajaynaynaa in ciidamadanada oo kuwa maamulada kulli dhibaatooyin badan naga haysto muddo 3 sano jirna anaga hadda 3 sano ciidamadii anaga aan tababarnay runtii ay noo tababareen AMISOM walaalaheen aad iyo aad ayagoo u mahadsan ciidamada ayada wali wax kaalmo oo maanan helin ciidamada noocaasa maalin walba way dhintaan maalin walbana way dhaawacmaan wayna dadaalaan runtii waxaan rajaynaynaa dawladda Soomaaliyeed iyo international community ciidamada ayada gacan nagala siiyo shirkan guulaan u rajaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa international community gaar ahaan dadkii isku soo qaban qaabiyay iyo waqtiga
iyo ka soo qaybgalkaba aadan ugu mahadcelinayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.